What can I say? Please recognize I'm trying, baby. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسور دواد يوتيوب channel كيني قصولتي مركلة يا مدل كلي عشر كله ما أنت واحد دينا هي كورس فرية الله يقنا financial accounting ولبنا financial accounting ندو والله بو financial accounting 1 يا financial accounting 2 يهدونا manager يا لوجو سي good بيو financial accounting 1 بان دينا هي ما أنت كورس كامر كين قادنا كبعد واحد يكسين دونا financial accounting 2 كورس كان حتى بمحوية هي عشر كائن ما أنت دقنا إنه ayaan in yaro idinka bixinaya tilmaama horta marka hore waxa loo yaqaano accounting-ka definition-kiisa waxa loo yaqaano accounting-ka rule-kiisa doorka uu ku leeyahay accounting-ku company-ga shirkadda iyo xubin la mid ah sidoo kale purpose of accounting ujeedada laga leeyahay accounting-ka sidoo kale types of accounting qaybaha accounting-ka iyo uses of accounting cidda isticmaasha accounting-ka accounting ayaa isticmaala haddii external noqoto iyo haddii internal noqotoba accounting muxuu yahay doorka accounting ku leeyahay company-ga shirkadda government-ga hay'adaha sidoo kale muxuu yahay purpose of accounting sidoo kale qaybihiisa oo aad u badan laakiinse inkastoo 8 marba in lagu sheego intii aynu ka gaarno baynu tilmaamaynaa haddaba maxaynu ugu horeysinaa waxaan ugu horeysanaynaa inaynu isla fahanno horta marka hore waa maxay accounting what's of accounting was the process of recording financial transaction waa habkii hanaanka lagu diiwaangeliyo dhacdooyinka ka dhaca dhacdooyinka maaliyadeed dhaca ee partner khuseeyo to a business ganacsiga the accounting process-ku sidoo kale waxa lagu magacaabaa uu ku leeyahay summarizing covid analyzing lafagur and reporting those transaction yani transactionadii dhacay ama transactionada dhacay in summarize lagu sameeyo company-gu sanadka uu shaqeynayay bisha uu shaqeynayay wax allaali wixii dhacda ama transaction ee dhacay in summarizing lagu sameeyo covid analyzing lagu sameeyo loo yaqaan accounting buu ku leeyahay oo ka bacdina laga diyaariyo wax loo yaqaan report oo looga sii gudbiyo reportadii saddexda ahaa inkastoo reportadu dhowr yihiin haddana saddexda ugu muhiimsan ee balance sheet income cash flow statement cash flow iyo tray balance oo qofka xisaabsanaya inuu soo gaarkii u diyaarsado taa accounting process-ka waxa loo yaqaano waa gabigiisuba habku waxa weeye waa transaction inuu dhaco ka bacdina aad record garayso transaction-ku ani waa wuxuu doonu noqon karaa wuxuu ama ka dhex dhaco gudaha oo ama ka dhex dhaco xafiisyada ama ka dhex dhaco ujeedadu waxa weeye inuu transaction-kaasi gudaha company-ga ka dhex dhaco transaction-ku bil loo noqon karaa mid lagu talagalay bil lagu soo xiray transaction-ku wuxuu noqon karaa mid lagu talagalay maalin oo hal maalin gudaha dhici kara qaar baa jira soconaya bil sida biilasha dukaamada oo kale yaalo kale iyo sidoo kale waxa loo yaqaano transaction-ka markaan ka nimaadno waxaan u imaanaynaa waxa loo yaqaano rule of accounting doorka uu ku leeyahay accounting-ku company-ga shirkadda waxyaabo la mid ah si kooban baan idin soo koobay wax dheer hadal dheer isma gelin the most well known rule of the accounting is to control a company financial gabigiisuba ama finance gabigiisuba doorka uu ku leeyahay inta ugu mudan ee la tilmaami kara waxa weeye inuu control ku sameeyo company finance de accounting-ka ujeedada doorka uu ku leeyahay company-ga waxa weeye inuu maamulo ama control ama xad u yeelo ama scope u yeelo maaliyadii company-ga inaan wixii iska baxaya iyo wixii soo galaya iyo waxaas oo dhan inuu maamulo oo de uu ka qayb qaato waxaan inay xisaab ku socoto waxaan meeshu aadayo sidoo kale purpose of accounting ujeedada accounting hadaba isaga purpose-kiisu waxa weeye to record and report a company financial transaction isaguna sidoo kale purpose-ku waxa weeye waa in lagu diiwaangeliyo warbixinta company-ga iyo financial transaction dhacdada maaliyadeed dhacda financial performance maaliyad wax qabadka maaliyadeed ee la qabtay and cash flow iyo qulqulka cash-ka maamulidiisa purpose of accounting wuxuu la soo ay iskaga kamid yihiin recording-ka ama waxa loo yaqaan report-ka waxaan wadee isaga ma kala dhamaanayaan dhammaantood isku soo noqonayaan laakiin financial performance iyo cash flow halkan ku cusub sidoo kale haddaba maxay yihiin qaybaha accounting types of accounting
qaybaha accountingku financial accountingku horta way badan yihiin xalay taybta accountingku way badan yihiin waxa ugu horeeya waxa loo yaqaan financial accounting oo xisaabta dee qofku inuu maaliyadda xisaabiyo governmental ba ku xigta waxaa jirta accounting dawladeed government taxiyada iyo cashuur iyo calaamada inkastoo cashuurta dawladda cashuuraha kala gaar yihiin accounting qofku xisaabiyo gaar isiisa inuu noqdo ama government accounting ku wada socdaan public accounting sidoo kale qofku inuu noqdo xisaabiye guud cost accounting qofku inuu noqdo walaxda qof koskii soo saari kara forensic accounting management accounting taxes accounting audit oo ah auditkii way badan yihiin laakiin se intaasaan idinka tilmaamay sidoo kale waxa loo yaqaano computer accounting baa jira inkastoo walow aan imika wadno casharadaasa koraska aan wadno isagoo firiya uu socdo computer accountingku qofku markuu financialada soo fahmo uu hab wacan u soo fahmo computer accountingkana uu ku shaqayn karaa computer accountingkuna wax weyn lama noqon karo koraskiisa waan wadnaa ilaa 2 cashar oo quraan imika soo dhignay laakiin se uu soconaya waxa ka rajinaya in isagana ku soo biirto aad dhigato labadaba isku wado waayo habkii manualka ee gacanta ama buugii qalin wax lagu xisaabinayo waa laga soo gudbay maanta waxa la marayaa digital inkastoo wax walba ay leeyihiin the advantage and disadvantage the ninkan computer accounting hadii la eego advantage iyo disadvantage faa'iidadiisa badan programkuna xitaa imika lamaba iibiyo bariga hore waa la iibin jiray 2017 imika qun yar baa iskala soo degaysaa soo free hadaba qaybta ugu dambaysa uses of accounting ayaa isticmaala inkastoo external iyo internal loo qaybiyo anu waan soo ka dhex daray isticmaalayaasha waxa ugu horeeya owners ama shareholders kuwa meesha ku leh shareka ama lahaanshiyaasha managers kuwa meesha maamulaya prospective investor maalgeliyayaasha creditors deemayaasha bankers kuwa banka deemanada laga soo qaado another iyo waxyaabaha lamida lending institutions iyo sidoo kale government dawladii waa userska ka mid tahay dawladda company-ga kula isticmaalaysa taxes ka cashuuraha ka qaadaysa dadna wuxuu maray ogays employee shaqaalihii agencies